daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii taariikhda maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa taariikhda boqorkii yaraa ee boqortooyadiisa uga tegay Carmalka. Boqor Edwardkii sideedaad wuxuu ahaa curadkii uu dhalay boqor Georgii shanaad kaasoo dhashay 1894kii kuna dhashay degmada White Lodge ee gobolka Richmond boqortooyada Ingiriiska. Sida caadiga ah waxa uu soo barbaaray qaab boqortooyo. Markii uu soo kacaamayba waxa uu bilaabay waxyaabo ka hor imanaya habdhaqanka boqortooyada. waxa uu ahaa mid boqortooyada dhexdeeda kaga suntan xaflada aadid iyo ciyaaridda kubadda golofka. inkastoo ay waalidkii isku dayeen dhowr jeer inay u guuriyaan uu ku gacan saydhay. sababta guurka loogu qasbayena waxay ahayd inuu ahaa dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada. waxay arrin socotaba waxa godgolay boqor Georgii shanaad. xaaladina waxay isugu biyashubatay xabaaliye ninkeed loo kala tag. Edward baana la saaray kursigii 1936. kolkii uu muddo joogay waxa uu boqortooyadii soo dhex joojiyay gabadh 2 jeer la soo furay oo la oran jiray Willie Simpson isagoo la dhacsan oo leh waliba waa dookhayga. arrintaasina waxa ay gilgishay boqortooyadii xukuumadda Ingiriiska iyadoo ay wasiiradu ku hanjabeen inay xilka ka degayaan haddaan arrintaa wax laga qaban. haddaba maxay ahayd sababta lagu diidanaa gabadha? xeerka boqortooyadu waxa uu ku dhisnaa 2 shuruudood oo ay tahay in laga helo marka ay gabadhi doonayso inay soo gasho guriga boqortooyada. qodobka koowaad inay diin ahaan haysato madhabta Protestaha ee diinta Masiixiyadda. 2 inay ahaato gabadhan guur hore soo marin isla markaana ay tahay dhalad aan dhalasho qaadan. haddaba Marwo Willie Simpson waxaasoo dhan way ka dheerayd maxaa yeelay waxay ahayd gabadh Carmala ajaaniba oo ka soo jeeda dalka Mareykanka isla markaana waxay haysatay madhabta Catholiga ee diinta Masiixiyadda. hase yeeshee horaa loo yidhi mulacna waa ku qurgooyo carruurna waa ku ciyaare. boqorkii da'da yaraa talaa ku caddaatay waxayna noqotay 2 daran mid dooro. go'aanu muddo badan la wareegayay kadib waxa uu dadka hortooda ka jeediyey go'aan diiwaanka galay oo ah aniga oo ah boqorka Ingiriiska dowladda aan calankeeda cadceedu ka dhicin waxaan awoodeyda wax ugu qaban kari waayey gabadha aan jeclahay. wuxuuna ku soo gunaanaday hadalkiisa inuu xilka boqortinimo ka doortay gabadha uu jecel yahay. 11 bishii 12 1936 ayaa waxa uu xilkii ku wareejiyey walaalkii ka yaroo la odhan jiray Edwardkii lixaad. arrintaasina waxa ay jaanis siisay boqoradda hadda aqalka boqortooyada Ingiriiska ka talisa ee boqor Elizabeth II. wixii maalinkaasi ka dambeeyey Edwardkii sideedaad waxa uu u madax bannaanaaday gabadhii uu jeclaa wuuna guursaday isagoo ula guuray magaalada Paris. ugu dambeyntii waayihii Edward ee isugu jiray boqortinimada iyo mawjadaha jacaylku waxay soo afmeermeen 1972 isagoo ay da'diisu tahay 77 sano jir. waa mahadsantihiin daawadayaal.